gaalkacyo maanta waxay ahayd maalin ka duwan maalmaha kale kadib markii dadweyne aad u fara badan bartamaha magaalada gaalkacyo ay ku soo dhaweeyeen xidigaha xulka kubadda cagta galmudug kuwaas oo maalmihii ugu dambeysay socdaal ku mariyay deegaano badan oo ka tirsan galmudugga ciyaartooyda ku guuleysatay koobka dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir ee dhawaan lagu soo gabagabeeyay magaalada muqdisho ayaa intaysan soo gaarin magaalada gaalkacyo waxay soo mareen degmooyin badan oo saaran laamiga sida galinsoor bandiradle saddex dilo dagaari iyo deegaano kale kuwaas oo ay ku sugayeen taageerayaal u hamuun qabay inay arkaan xidigaha xulka kubadda cagta galmudugga wadooyinka ugu weyn ee magaalada gaalkacyo ayaa lagu arkiyay dadweyne aad u fara badan kuwaas oo saakay aroortii hore u yimid madasha soo dhaweynta ciyaartooyda xulka kubadda cagta galmudug oo galinkii dambe maanta si weyn loogu soo dhaweeyay magaala madaxda gobolka mudug ee gaalkacyo waxaana taageerayaasha ay ku dhawaaqayeen arriyo ay ku soo dhaweynayaan ciyaartooyda ciyaartooyda ayaa islaamay taageerayaashii ku soo dhaweysay bartamaha magaalada gaalkacyo waxayna ugu mahadceliyeen soo dhaweyntooda macalinka xulka kubadda cagta galmudug Axmed Tahliil ayaa u mahadceliyay taageerayaasha gaalkacyo bismillaah runtii farxada ii tahay maantay in aan joogo caasimadii mudug ee galmudug haddee tahay gaalkacyo wixii maanta meesha aan ku arka ma ahan wax aan kilibkan uga sheekayn karo waa wax taariikhda inta aan noolahay aan uga sheekayn doono dhammaan bahda sportiska ama dadka ka soo jeeda dhammaan reer galmudug waxay ahayd farxad anigoo maanta koobka wado inaan ka soo degno magaaladii quruxda badneed xadaaradda badneed lagu yaqaan dawlad dhiska lagu yaqaanay dhiirgelinta waxay tahay wax maanta farxadda maanta meeshan aan ka sheegi rabo ma aan wax yar aad ugu faraxsanahay waa ku riyaaqay meeshan idin karaftiina waxa waa maasantiin sidoo kale walaalkii xildhibaan sare gudoomiyaha dhalinyarada meeshan waa wada joognaa runtii waxaan leeyahay soo dhaweynta maanta gaalkacyo ka dhacday waxay ugu qasabtay magacii Axmed inaan maanta gadaal u celiyaan la baxo macallin gaalkacyo waxaan rajaynayaa insha Allah arintan inay noqon doonto arin ay dadka ku wada daydaan wixii maanta meeshan ka dhacay waxay aad wax qurux badan oo saameyn badan leh reer gaalkacyo waa la ku xusi doonaa sharaf iyo karaamo korkiina ahaato ciidamada amniga deeyihiin walaalaha sharafta lahay gabdhaha quruxda badnaay hooyooyinkii iyo odayaasha waxaan leeyahay waa maasantiin duqa degmada gaalkacyo Cabdiraxmaan Sheekh Xasan ayaa dhinaciisa sheegay gabagabadii koob ku soo dhaweyno iyo koob ka soo bilowday caasimadda dowlad goboleedka galmudug ee Dhuusamareeb degmooyin fara badan oo soo maray ilaahay baa ku mahadsan mar kale bulshada qiimaha badan xalay waa mahadsantihiin waa ku faraxsanahay runtii muujinta dareenkiina aan muujisan aad baan kaga mahadcelinaa waqtiga qaaliga ah oo aad geliseen maanta saaka salaadii ilaa iyo galabtay oo 12 saac ku dhawdaa qoraxa taagantiin adduun iyo aakhiraba ilaahay idin sharfo aad baan kaga mahadcelinaynaa mar kale reer gobolka mudug gaar ahaan reer degmada gaalkacyo dareenkiina saa u cabirteen waxay muujinaysaa miisaankii mudugnimo xaniyihii la idinku yaqaanay aad baan kaga mahadcelinaa anaga 100% aad iyo aad baan kaga mahadcelinaa dadaalkiina iyo waqtiga qaaliga ah maanta gelisay soo dhaweynta tiimka sportiga ee wasaaradii dhalinyarada sportiga iyo macallinkii iyo xulkii dhammaan ay hogaaminayaan waxaan rabaa gaalkacyo ku soo dhawaada Libin Cajiib Xaaji TV Universal gaalkacyo